daawadayaal ismaqal iyo daawasho wacan halkan waa Qaranjoog News qodobada wararkana maanta waxa ugu waaweyn waxa goordhow loo doortay madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Jubbaland Axmed Madoobe dhinaca kale maamulka isbedel doonka ayay waxay doorteen Cabdirashiid Maxamed Xidig oo asna ka noqonayo madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland maxkamadda sare ee Puntland oo go'aan ka gaartay ragii kufsaday dilkana u geystay Aisha Ilyas oo go'aankaasi dambeesta ay soo saartay sarkaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya oo la dalaacsiiyay dawladda Djibouti oo shaacisay in aysan ka rajo dhiganin kursiga qaramada midoobay la siiyay dawladda Kenya inta waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu doorgaroon iminkana u diyaar garooba warkeena oo dhameystiran markale daawade isku soo laabasho haboon hadii uu yahay markii kugu horeysay channelkiga soo booqato waxaan si naxariis kaga codsanayaa inaad subscribe saarto gomleekana furto si uu ku soo gaaro wararkii u dambeeyay anagana aad noo dhiirigeliso mahadsan daawada aan ku horeyno waxa goorno magaalada Kismaayo ee ka dhacda doorashada madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland ay ku tartameen ilaa ay 3 musharax oo ku jira madaxweynaha maamulkaasi Axmed Madoobe doorashada waxa codadka dhibtay ilaa 74 xildhibaan waxaana ay xildhibaanada ay kala dooranayeen 3 musharax oo kala ah Ahmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe musharaxa Maxamuud Maxamed Umar iyo Canab Maxamed Daahir waxaana guuleystay doorashadaasi musharaxa Axmed Madoobe oo helay 56 cod halka musharaxa ku xigay oo ay ahayd Canab Maxamed Daahir oo heshay 17 cod halka musharaxa saddexaadna uu helay 1 cod oo kaliya doorashadani ayaa waxa si rasmi ah ugu guuleystay musharaxa Axmed Madoobe oo horeyba loo saadaalinayay inuu ku guuleysanayo maadaama uu isaga maamulayo doorashadaasi ka dhacday magaalada Kismaayo waxaan ku godo jirnaa magaalada Kismaayo baarlamaanka isbedel doonka Jubbaland ayaa goordhow doorashada ay ku qabteen magaalada Kismaayo waxay madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland ay ugu doorteen Cabdirashiid Maxamed Xidig doorashadaani oo aan si toos ah loogu daawanin ayaa xildhibaanada isbedel doonka ugu codeeyeen madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Xidig oo kamid ah musharaxiinta ka soo horjeedo dib u doorashada Axmed Madoobe doorashadaani ayaa soo dhamaatay ka hor inta aan la shaacin natiijada doorashada kale isna ku guuleystay Axmed Madoobe oo horey la filayay in uu ka soo baxayo doorashadaasi magaalada Kismaayo ayaa maanta siyaabo kala duwan loogu doortay laba madaxweyne uu yeelanayo maamulkaasi Jubbaland lamana ogo sida uu ku dambeyn doonto xaaladda magaalada Kismaayo oo maanta lagu doortay laba madaxweyne oo isdiidan markaana maamulka Puntland maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa maanta go'aan kama dambeys ah ka gaartay 3 nin ee loo haystay in ay dil iyo kufsi naxariis darro u geysteen Aisha Ilyas oo ay ahayd 12 sano jir maxkamadda sare ayaa ku raacday go'aankii hore maxkamadda darajada koowaad ee taraafaanka Puntland xukunka dilka ay u rideen 3 nin ee loo haystay inay dileen kufsina u geysteen Aisha Ilyas 3 nin oo xukunka dilka ah lagu riday ayaa laba kamid ah waxay yihiin walaalo waxaana ay kala yihiin Abdulfataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabsalaan Cabdiraxmaan Warsame ninka saddexaad ayaa isna ah Cabdishakuur Maxamed Dige raggaani xukunka dilka ah ku riday maxkamadda sare ayaa hore u qortay inay ku lug lahaayeen dilka iyo kufsiga magaalada Kaalkacyo loo geystay Aisha Ilyas aadan oo ahayd 12 sano jir wali aan qaangaarin markaana shabeellada hoose taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe oo shalay booqday difaacyada ciidamada dawladda ee deegaanka Bariile ayaa bogaadiyay ciidamada militariga ee deegaankaasi la wareegay taliyaha Indhaqarshe ayaa qiimeyn ku sameeyay xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda ee al-shabaab kala wareegay deegaankaasi Bariile waxaana uu ciidankaasi ku amaanay geesinimada ay muujiyeen isagoona ugu baaqay inay adkaysi sameeyaan General Indhaqarshe ayaa shalay inta uu joogo Bariile dalaacsiiyay sidoo kale shahaada guddoonsiye sarkaalka hogaaminaya howlgalkaasi lagu wareegay deegaankaasi oo lagu magacaabay Cabdi Cali Raage sarkaalkani ayaa markii hore darajadiisu ahayd dhamme waxaana uu hadda taliyaha ciidanka xoogga u dalaacsiiyay darajada gaashaale waxa uu sidoo kale taliyaha la siiyay shahaado sharaf oo ku muteystay shaqada adag uu qaabtay markaana Djibouti danjiraha Djibouti ee Mareykanka iyo Canada mudane Maxamed Saciid Daawud ayaa sheegay in aysan wali ka rajo dhigaynin kursiga qaramada midoobay ee shalay midowga Afrika ee siiyeen dalka Kenya safiirka ayaa sheegay in aysan isdhiibin dawladdiisa isla markaana u tartami doonto xubinimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka sidoo kale waxa uu mahadceliyay dalalka taageero u fadhiya dalkiisa isagoona xusay in ay sii wadi doonaan oolaha ugu jiraan kursigaasi Djibouti waxa ay mar labaad xaqiijinaysaa go'aankeedii ah in ay sii wado
dalabkeedii inay kursigaasi ka hesho golaha ammaanka muddada 2021 ilaa 2022 ayuu yiri Daa'uud sidoo kale wuxuu intaasi raaciyay waxaan u mahad celinayaa dhammaan dawladaha xubnaha ka ah UN-ka ee taageerada u muujiyay Djibouti shalay ayay ahayd markii midowga Afrika uu Kenya u doortay musharaxnimada kursigaasi kadib codayn ka dhacday xarunta ururka ee ku taalo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Ethiopia waxaan inta noogu idlaaday wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka wararka lamid ah intaan ku wada kulmi doono saaxiibada aan jecelnahay waxaan idinkaga tagnaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh haddii uu yahay markii kugu horeysay channelkayga soo booqato waxaan naxariis kaga codsanayaa inaad subscribe karto gumleekan afurto si uu soo gaaro wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka annagana aanu dhiirigeliso mahadsanid daawade